halka u jeedin waxaa lagu dilay wadaad masaakiin ahaa oo dabakaayo ku iibinayay bagaashka yararka ah ee batalyoonka laga raadiyo. waxaa dilay askari ka tirsan ciidamada booliska gaar ahaan askari ilaalo oo ahaa gudoomiyaha degmada Shangaani oo u dilay xabad sigaar ah oo ka dalbaday inuu ka iibiyo markii uu ka diidana oo u dilay xabadii sigaarkeed madaxeeda u dilay. wadaadka la dilay ayaa waxa uu ahaa dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan degmada Xamarjab gaar ahaan agagaarka Umbartooy gaabta ee qotoloon ka raadsanayay dabakaayada riska. sida u jeedin dadka soo baxay waa si deegaanka oo ka careysan dilka la dilay wadaadka miskiinka ah. sida la sheegay askarigii dilka geystay ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya iyagoona u qaaday dhanka CID-da balse xaqiiqda lama hayo. sida u jeedin shacabkii ayaa ka cabanayo in aan meedku wili meesha laga qaadin wadadina xirtay. goobta uu dilka dhacay waxa ay tahay iridda laga galo madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan wadada ka soo baxday isgoyska Xamarjab ee gashay madaxtooyada iridda hore ee idaacadda Risaala. hadda waxa u jeedin meedkii ayaa la qaaday ciidamo booliska yimid oo dhanka CID-da u qaadan dalbanaya. wadaadka miskiinka ah ee hadda meedkiisa la qaado jeedin waxaa loo dilay xabad sakreed ah oo goobsi ganacsi in laga qaato la rabay oo diiday oo yiri ku siimayo askariga sidaas loo dilay. goobtii lagu dilay wadaadka miskiinka ah waxa yaal waa dhiigii ka baxay. sida la sheegay askarigii dilka geystay ayaa muddo ku dhow 10 daqiiqo laga celinayay wadaadkan oo doonayay inuu dilo. xabado dhowr ah ilaa iyo 3 xabadood ayuu markii hore kor u riday si uu uga cabsiyo. wadaadkan waxa uu sheegay in uusan xaqiisa ka taganaynin oo dugaankiisa afar wado uusan cabsanaynin maadaama dalka ay dowlad ka jirto. intaas kadib askarigii oo si jees u hadlayo ayaa waxa uu ku dhuftay wadaadka miskiinka xabad asigoona sheegay inaan waxba laga qaadaynin oo magaalada sii joogayo inta dilo. wixii ku soo kordhaa falkan dilka ee loo geystay wadaadka miskiinka ah waa idin socodsiin doonaa.